wareegan hadda oo ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha cadaaladda garsoorka xeelalaynta booliiska iyo asluubta waxa uu noqon doonaa mid aynu ku qaadano cashiro runtii muhiim u ah shaqada aynu gacanta ku hayno oo la xiriira habka loo sameeyo baadhista kiisaska ciqaabta ah waa halka ay ka bilaabanto dacwadaha ciqaabta marka aynu qaadayno halka haddii geed socod fiican la marana ay wax hagaagaan cadaalad lagu gaadho haddii ay wax ka khaldamaanna cadaaladdu ay dhantaalmayso maanta ayaynu bilaabi doonaa habka baadhista waxaana idinku xigi doona casharka labaad oo ah habka oogista baadhistu markay soo dhammaato waxaa ku xigaa waa in loo oogo ayadana hab geedi socodkii loo marayay ayay noqon doonaa qaybta dambe inay ugu xigto tababarka inta tababarku socda marka waxyaabaha aynu ku qaadanayna ka sokow intan labadan cashir ee la soo diyaariyey waxaa ka mid noqonaya ka qayb qaadashaad samayn doontaan oo la xiriira shaqada la hayo iyo goldolooyin ka jira iyo in la kala faa'iidaysto ma noqon doonto wax macallinku sidii ardayda wax u akhriyo idinkuna aad dhegaysataan laakiin waxay noqonaysaa wax la isweydaarsado maxaa yeelay tababaradu sidoodaba waxaa loogu talagalay in shaqada lagu saxo tababaradu xirfad weeye waxay wax ka bedelaan shaqada gacantan ku hayno way ka duwan yihiin waxbarashada tooska ah ee jaamacadaha loo galo sidaa darteed aqoonta halkan ku qaadanaya tababar markii la yidhaahdo maadaama toos ula xidhiidha shaqadii gacanta lagu hayay maalin walbana cashir cusub aynu la kulanno oo la xidhiidha wixii aynu soo barannay oo shaqadii practical marka la qabanayo xaqiiqada ay soo baxdo tababarada waxaa loogu talagalay inay wax ka bedelaan oy ku soo kordhiyaan shaqada aynu qabanayno wax wanaagsan oo adeegii toosiya bulshada loo hayay sidaa darteed waxaan ku kala faa'iidaysan doonaa in ka qayb qaadashadiinu ay noqoto practically waxaad la soo kulanteen iyo meelahaas leediin halkaas sharciga muxuu ka qabaa halkaas faham darra ka jirta halkaa waa laga leexdaa dhaqanma la raacaa laakiin sharciga lama raaco waxaa markaa isla gaari doonaa meel la yidhahdo halka sharcigu waa noocaas waa in qaabkaa loo fuliyo hadda wixii ka dambeeya oo faham isku mida dhammaan la qaato marka ka qayb qaadashadiinu faa'iido badan bay leedahay macallinku wuu hagayaa waxay idin soo bandhigi doonaan habka baadhista loo sameynayo laakiin practically waxyaabaha jira idinku inaad ka qayb qaataan weeye oo tiradan baadhista annagu noocan u sameynaa waxaa laga yaabaa inuu baadhuhu ka dhaxlay kuwo ka horreeyey qaabkii wax u baadhi jireen oo aan sharciga waafaqsanayn waxaa laga yaabaa xeelaalyuhu in aanu tallaabadii loo baahnaa iyo maxaa yeelay taageeradii looga baahnaa baadhista inuu ka geysto aanu ka geysanin isagoo raacaya dhaqan ka horreeyey waxaa laga yaabaa mararka qaar inaynu ka gudubnaba intaynu xadaab samayno aynu meel kale u tallaabsanno arrimahaas oo dhan waynu kaga faa'iidaysan doonaa marka waxyaabaha muhiimka een rabno in halkan laga qayb qaato waxaa ka mid ah idinku inaad contributionka in badan yeelataan in badan inaad ka qayb qaadataan ood soo gudbisaan practical qaabkee loo shaqeeyaa maxaa sharciga waafaqsan maxaan waafaqsanayn kadib aynu dib ugu soo laabanayna markaa cashirka macallinku bixinaya oo ah kii saxda ah ee in la raacay ahayd oo sharcigu dhigayay